nasiib darro ah kuwa aan ka hadlayay ee na dayacay shalay ee si ghayr mas'uulnimo ah u sahladay badeen inay baxdo ama dana gaar ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirta haddana xukunka dalka inay qabtaan qofka Soomaaliya aqli leh oo dadnimo ay ku jirtaa waa gara kara waxa ka dhalan kara dadka noocaas mas'uuliyadooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan dadka Soomaaliyeed ha foojignaadaan indhooda kor nin nacayb maaha nin jeclaysi maaha laakiin waxaan leenahay dadka mas'uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminayo ha laga fiirsado gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo harta qabiiq ninkeeda dhameystira goorma la yiraahdo ishay ka tamid ku jirta qabiiq ninkeeda dhameystira waxa la yiraahdaa qof hawl loo diray shaqada loo soo qabo waayay lagu khasbaayo inuu qabto shaqadii hal qabiiq ninkeeda dhameystira hal ah shaqada iska soo dhameystira tan shaqa khasaba ma waa shaqa adiga aad dooranayso waa shaqo lagu dooranayo waa shaqo qaran marka munaasabad lama laha xiriir lama laha mahmaayadana meesha ay soo gashay hadiiba aa qabiyeysay madaxweyne hadiiba aa qabiyeysay shaqada lagu doorto oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacdo arrintaas waxaan u maleynaa xaq u maleyn mar kale inay soo taagto waxay kugu taa fadeexo waxay kugu taa wajigo inaan mar kale tiri Alle taaga sidaas oo kale waxaan dhihi lahay inaad dhaqaalaha qaranka u isticmaashid hantida qaranka inaad u isticmaashid kursiga inaad u isticmaashid inaad uga faa'iidaysatid mar kale si aad ugu soo laabatid si mar kale dhuunta uga qabatid ummadda arrintaasina sax maaha fursada lagu siiyo laguma aqoonin shalay annagoo dhan waxaan islayn anoo layga raay waxaan islayn ninkan wax fiican oo sameeyana xaqiiqa idin sheegan laakiin waxa dhacay wax la filaaya maaha mana la aqbali kara mar kale in la soo laabto sababta aan leeyahay waxa wax kale ma aha waa ogtiin dalka waxaan ka soo wadnay meesha laga soo bilaabay meesha la gaarsiiyay annagoo habbi ahaan wareejinay ka tagnay wax kalena ma ahayn hore u socday hore miyaa loo socday hore looma socon soo macquul miyaa maanta in lagu la qanciyo isla nidaamkii aan soo celinayna maxaa soo kordhay qofka xataa hadduu wax ka bartay khaladaadkiisa waa fiicanta hal khalad oo ay galeen ay bedeleen hal sheego misaal waxa ah doorashooyinka ka dhaca gobolada sida loo boobay oo keenta crisis hadda ka bilowday gobolada misaal waxa ah galmudug dalkan waxa uu burburo waa cadaalad darro madaxda qaranka waxa la rabaa dalka inay ku hogaamiso cadaalad madaxda qaranka waxa laga rabaa dadka inay midayso sida dadka loo qaybiyay sida dadka mataqaana la isugu diray waxay nagu boorinaysaa fursadan baarlamaanka inaysan beer darayn marka mar kale waxaan ugu celinaa xubnaha sharafta leh baarlamaanka iyo golaha sare inaysan fursadan dayacin